بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا إلهي كفدية بقال بشو إليه هاي أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله إذن دورو إيو علماء دينك وحن شيخ ويدين يا شوال أيا وحا إيغا دمن هل مالين لحظي بري مركا مالين تجمعها مسومي كرا قاسة بري أو كلا مد كلا هيلبكا تشيكينكا مسا دورada ماكدونالد مسا KFC ما عني كرا هديس وراق لغو قرو بسم الله الرحمن الرحيم دربيغا لغو ديجيو xoolo lagu qalo ka waran wali qofka aan islaam ahayn ayaa haduu rabo qalayo afiduna afadakum Allah barakallahu fik shaykhana tafadhal السلام عليكم السلام عليكم حتى الشيخ هذا ودي سؤال شيء ماكدونالد هرت محل هذا ماكدونالد بلا كرتصوا معه معتصموا ماكدونالد انا بقول لي واحد مقلين معه مركا ماكدونالد معناه شيء قرنيه بالرين ودي مركا تاسوا مدويه waxa kale yiraahdo waxa laga soo hormaray Sheekh Xasan Ibraahim Salmaan Ciise ayaa walaalkiis xanuunsan yahay dhamaan walaalahan waxa ka codsanaya in maartii loo duceeyo Sheekh Xasan Ciise fadlan hadaad McDonald ka faantay assalaamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم شوالك هلك مالين كاغا ديميه هي صوم ولح الى 20 بان فيليا شوال مانتا بريتنا waa 7 waa macquul suuragal waa gabagabo marka loo soo sheegin in shalayna soontay been arabti inaad soontid xadiis baa tilmaamay jimcaha kaliya in la soomo inay mamnuuc tahay ama maalin laga hormariyo ama maalin laga dib dhigan ay markaa wanaagsan tahay laakiin hadii shalay aad soonto ama maanta aan dhihi lahaa aad soonto khamiis ah بريتنا أتسومي سهلك بريء كاجا دمتها مشاكل كمسقنا وجمع كلجيسا للديدي ولا واحد للسنة والشوال شوال كلفت جيسا والصنة مركب بعد ما هالمالين كود دمتها هي برينا صون وجمعة أو حقول يستا شوال ما أنت كو حكتنا الصون والصنة عادي مركا الصون سي أدنهي وحيالا مركا وقب حضون تاسا مركا أوفي عن إن شاء الله تعالى تكلوا سيد حنفي وشاقية أنا بسوي الماكدونالد ام بي اكس تشيكن او ام بي كقران وقد ما لو قراي معناها الله اعلم منعني كرا انسان مليولي كرا المهم كان نوع سيده حنفي marka sheegay insha Allah ta'ala waxad moodaa inuu ila fahmay isla markii uu soo qabsaday xanafi marka bal insha Allah ta'ala wixii xalaal aad u aragtaan culimada idin dhahdo waa xalaalna cuna wixii culimada idin dhahan waa xaraam ana aad ka shakisaan isaga taga way qiyaamaha waxaan maxaad u cuni weyso lagu qabsan maayo haddii laba arin la isku qabsado la yiraahdo kan wuu fiican yahay iyo kan wuu xun yahay inta badan waxa la raacaa kan hal iska dhaafada haddaad iska dhaafto xalaal noqdo xataa lagu dhihi maayo maxaad u cuni weysay haddaad baasti iska dayso ilaahay hadduu ku aakhir aad tagto maxaad baasti cuni weyso qof loo qabsanayo malaha laakiin haddaad dhahdo war qansiirku amuu fiican yahay amuu saan wadad waa fiican yahay dahay iska cuna aad cunto biri waa lagu qabsanayo xaaraanta cunitaankeeda marka insha Allah ta'ala saas sameeyo ilaahay idinki nacam المعتصم يا عبد الرؤوف هريك السوداء هذا عاوة الإسلام قبسن كربالك عبد الرؤوف هذا كوفية ده وطهلقة قادنا والله هاي مركة وأنا بسك قاددوه قبل بروح الله وحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ وكو سلام يا ولا رحبا وحي حقا لقبع الشوضة إلهي يديتي السيد دعوذي يدعي sidaan u jeclahay in ilaahay uu ii jeclaysiiyo sidaas oo kale caruurta iyo ninka aamiin adaan ku jeclaysiiyo waayahay waxay leedahay
farteeda aad looma garanay waxay leedahay sheekh cudur ayaa leeyahay masayr la yidhaahdo odaguna waa nin shukaansi badan marka waxaan sameeyaa oo aan kala dagaalaa xagga kharashka biil aad u badan baan ka qaadaa si uusan wax kale iyo mid kale toona uusan u hawaysanin biilkaas oo aan guriga wuxuu u baahan yahay iyo carruurta iyo aan geliyo marka arrintaas ma dembi bay igu noqonaysaa yahay sheekhana fadal bal waaba haddina buu ku imaaya fadal sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم انت قدام بس مركان كقادنو waxay sheegtay inay biil ka qaado oo dheeri ah meesha waxaan ka fahmaynaa inuu siiyo asagana waa imaysan dhihin biil baan ka qaataa iimana diide marka sida ay u gashay sida asaga uu galay waa ka fiican ba ana waxay isku dayeysay inay xoogaa wax abuurto laakiin ma sha Allah oday aad u aqal oo aqli badan waay keen ho maxaa diidaaba marka waxa diidi kartid numada lahanba waxbaa dhamaaday hoo waa lagu siiyey waxaad ugu tala gashay lugooyo laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala asagana waxaan filayaa inuu ilaahay dhaqaale siiyeyo kaama xasdin marka bacdamuu saas yahay oo aadan su-aasha kusoo sheegin waa weydiiyey awood uu ii lahaan waayey inuu isiiyee see naa kale u shukaansanaya maadan dhihin waxaa laga fahmayaa inuu ku siinaayey marka nin fiican buu noqday waa uu kaa raayay waxaan dhihi karnaa masiirka iska yaray una ogolow una fasax sababtu waxay tahay nin gacan furan waayo wixii keen aad tiri markaa ku siiyey Canada marka waxa ay ka dambeeyay dumarka marka gadaal u raacno oo aan fiirino way sameeyaan xaaladda noocaas ah ninku markuu waxaysanin ama waxaystaba mar allaal marka hal naakidi ay tahay waa loo dhaqaaleeyaa way u dhaqaaleynayaan waa naagaha badankooda way u dhaqaaleynayaan kan saan waaye halkii xafaayada camad waxaa laga yaabaa in quraacdii iyo qadadii cashadii loo wada xiro laakiin maalintii wax lagu arko ama wax lagu tilmaamo ama wax lagu ogaado ama naa kale uu qaato hal daqiiq waa la xiraa saabaqlay qirf waa la furaa haddana waa la tuuraa kalabaa la soo qaadaa dhagba saakuu ka tegay idoo buuxda doorkii soo noqday ogow yaa xafaayadda way dhammaatay keenaa la leeyahay marka waa lugooy ayadataa laftigeeda marka wax loo baahanya marka ma aha insha allahu tacaala marka la masayro dadkan waxay dhihi jireen waxba kala wax kala la sameeyaa qaarkood wuxuu ku tusayaa in qofka uu dilaba kow uu siiyo qaarkood wuxuu tusayaa in biyo kulul inta la karkariyo lagu shubo qaarkood wuxuu tusayaa baabuurka miraayadiisa in la jabiyo qaarkood wuxuu tusayaa waxyaabahaas camal ah marka waxa la yiraahdaa haddii adiga waxaas aad noqoto ama seerka yimaado meel kale la aadaa kow maxaa lagu mashquulaa guriga laftiisa lagu mashquulaa sababtiisaan u tiili horta soo qaaday sida kale u dhigko saa uu xiis adaa dhididaayo oo kaliya qof kale ha wacin si kale ha yeelin baa la yiri inta u dhig kan waxay sameey kan waxaad ku mashquulaysaa adoo tacbaan gaarayo hurdo maahe wax kale aad rabid yaalka isaga dhacaysa inta naf gali lahayd inta sariir waxa baabuur wixiis ajjabin lahayd inta dhiig islaamid galeed inta wax kale sameyn lahayd adaa isku mashquulaa tu waxay ku mashquushaa jasadkeeda waxbaa la ismarinaya maanta dhan wala qubaysanaya wala waxaynaya bahalkan sambuuska la yiraahdo waxa maqlay waxa sameeyay naag maseertay naag maseertay ay sameysay sambuuskan ma jirin intay maseertay waxay sameysay waysa basal ay soo qaaday ma og waxay sameynaysaa way googoynaysaa basasha yariis ka dhigtay waxay soo qaaday hilibkii shiiday waxay keentay bur way cajiinisay waa macnaha ma is og waxay sameynaysaa waa fiirisay saddex gees ma jirinba saddex gees ay ka dhigtay waxay ugu tala gashay ma aha waa ku shubtay saliiday dabka ku shubtay saliidii waa kartay sambuuskii ku riday waa la soo bixiyay saxana la saaray kaale wax ka macaan badan marka qofku allaal markuu asagu ku mashquulo shay kale faa'iidana waa ka soo baxaa wax kalena waa ka soo baxaa marka asaguna ha ku mashquulin lacagtana ha ku mashquulin waxaan dhugooyin ha ku mashquulin si kala loo mashquula maantana ilaan marsadaa doontid beri iska tirtir maanta dhan intaqana xijiya iska jir beri haddana wax kala sameey marka saasa la sameey بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجزاك الله علما حرصا وتقى الشيخ أبو عبد الرؤوف
يكسر الله خير منك سقف إن شاء الله. أنا أكو بخير بإذن الله. سقف أخي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رما هانتي عاوة علم بلن فان فائدي. الله أكبر. انت أولي هلكم شوقي عاوة سؤالها أن كفائدي. ما شاء الله ما شاء الله. سوح الله حلي يابلنا ما شاء هدا مبرمي هدا كدب وحوي وابا نمر عرس وين. الله أكبر. شاهد سوى الله شيء حتى هو بان بانترا سؤال بان ولا بارك الله فيكم. سؤال شاني عجيب. انت أن سؤال مغدان صوب النبا كبد با waxay tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waalin salaama dhammaantiin rabatago intaa kadib walaal biirka midka ku xuulka lahayn oo ah midka biir bilaa dembi ay dhahaan carabta dhakhtar ayaa u soo qoray eedaday ee maxaladan mise iska dhooqi kartaa mise waa maasha allah. sheekh waxaan filaad fahamtay. allahu akbar. asalaamu calaykum. soo qabsa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. بير بلا دنبي بريهان دنبي waxaa jirta waxyaabo fara badan oo la fududaysto biir bilaa dembi maxaa loogu soo qoray wax un baa ku jira. caanaha maxaa loogu soo qori waaya caana bilaa dembi, kan maxaa loogu soo qori waaya faantada bilaa dembi, kan maxaa loogu soo qoray biir bilaa dembi. macnaha inay meesha wax ku jiraan baa laga fahmayaa. wuxuu soo gelayaa calal aqal waxa shakiga ku jira in laga tago. dhakhtarkase sababta uu kugu soo qoray biir bilaa dembi wax meesha ku jira kaniin iyo shuruud baa laysku ogaa. marka xaaladahaas oo dhan qofka muslimka inuu ogaado waa shay lagama maarmaana. walaalayaal waxaa soo baxay baryahan ribo islaami oo fiiriyaa ribo islaamiya. waxaa soo baxday anaashiid. macnaha anaashiid macnaheedu waa hees un marka la fiiriyo. anaashiid islaami waa heeskii wuxuu dhaama malaha laftiisa marka la fiiriyo wuu ka ag dhow yahay wixii la qaylinayay wixii oo mtaqaana laxankii uu leeyahay. xataa nebiga ha lagu amaano, xataa wax kale ha lagu sameeyo. heesihii gabdhihii qaadi jiray ramadaanka ku ammaanaya ramadaanka ha la soomo khayr iyo wanaagaa la helawaayo oo muusigada ku jirta laxanka loo sameynahayay. anaashiida laftigeeda maanta maxay dhaantaa? waxay dhaanta ma jirto. saa darteed baa waxaad arkaysaa anaashiid maxaa lagu daray islaami. waa hees islaami adoo la yiri ribo islaami. waxaa la yiri macnaha ribo islaami ah. waxaa la yiri mtaqaanaa waxyaabo fara badan oo islaami lagu daray bilaa dembi. xaalada noocaasa qofka muslimka inuu ka digtoonaado. saa darteed baa waxaa la yidhaahdaa qofka xaqiiqda iimaanka ma gaaro ilaa uu ka tago waxaan dhib ku sugnayn asagoo ka cararayo ka ordaaya inuu ku dhaco shay dembi leh. marka saa darteed ilaahay ha laga cabsado subxaana watacaala. waxyaabaha noocaasa aad ha laysaga ilaaliyo. xaqiiqdii ma dhihi karna waa xaaraam, xaqiiqdiida ma dhihi karna waa xalaal. waayo biir bilaa dembiabana loogugu soo qorayba meel lagu sameeyey iyo wixii ku jiray iyo ma naqaano. warqadaasun baa maanta la akrisanaya. warqad banaanka ku taalo qofka iska akrisanaa. markaas warqadii dhalada ku dheganayd yaa dadka nas u noqotay. marka aad ha laysku ilaaliyo qofka muslimka ah inuu aad aad isku dhowro. waa shay muhiim ah. waxyaabaha uu cunaayo, waxyaabaha uu cabayo, waxyaabaha uu labisanayo, xaaladahaas oo dhan waa arrin muhiim ah in markaa la ogaado. wixii xalaalnimadiisu ay caddahayna cuna oo isticmaala, wixii xaaraannimadu ay caddahayna ka wada taga. maxaa soo haray? mushtabihaad soo maaha. mushtabihaadka waxaa lagu tilmaamaa in laga tago. taasaa u fiican. qofkii ka tagana faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi, diinkiisii sharaftiisu ilaaliyey. qofkii ku dhacaana xataa hadday xalaal yihiin marka dambe waqaca fi lxaraam, xaraam buu ku dhacayaa. ilaa nebiga tusaale uu ka bixiyey ee uu yiri nin ari jir ah oo arigiisii ku raacay meelo la ootay gaarkooda yuushuf an yartaca fiih, inuu daaqa ay soo dhawaanaysaa. laakiin haddaad ka fogeyso kawar banaankaas aad ka marta biir bilaa dembiga xataa aad iska fogeyso. mtaqaanaa anaashiid islaamiya lafteeda aad iska fogeyso. haddaad iska fogeyso mtaqaanaa ribo islaami ah. xataa waxaa baryahan socdoo la tilmaamahayay zina islaami ah. waa wax dhib badan. macnaha shaytaanku wuu sii qurxinaya xaaladaasaa markaa la marooya. marka ilaahi subxaana watacaala iyadoo laga baqaayo wax kastoo shaki gala qofka muslimkaa iska dhaaf insha allah. nacam. allahu akbar. wallahi aad baan u faa'iiday ninka la yidhaha cabdirauufow. waxaan ba anigu aad ula yaabay caawayto su-aasha meesha la keenay oo ahayd bir bilaa dembi. yaa waaba maxay oo qiyaamihii baaba la taagan yahayba qiyaamihii
آخر السبب على مدى سواء كم هذا اللي يرهب فيه كان دب معهم وحلال يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف سوسي أسماهين إلهي سبحانه وتعالى حفظ دين شيخ حسن إبراهيم عيسى